Muuqaalkan maanta waxaynu kaga hadlaynaa taariikhda waxbarashada Somaliland, halkay ka soo bilaabatay, marxaladaha ay soo martay, iyo haatan halkay taagan tahay. Jamhuuriyadda Somaliland waxay leedahay taariikh iyo sooyaal dheer oo waxbarasho. Waxaynu eegi doonaa taariikhdaas oo aynu u kala saari doono dhowr marxaladood. Waxaynu soo qaadan doonaa 1930 ilaa 2020 marxaladaha kala duwan ee soo martay waxbarashada Somaliland. maadaama ay taariikhdanu dheer tahay, barnaamijkan waxa uu noqon doonaa taxane aynu si joogto ah u soo gelino. Tanuna waa qaybtii koowaad. Tanuna waa taariikhda waxbarashada Somaliland ku dhowaad hal qarni. xaladooda oo waaweyn ayay waxbarashada Somaliland soo martay xilligii gumaystaha Ingiriiska, xukuumaddii rayidka ahayd ee gumaystaha ka dambeysay, iskii militariga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre, iyo mar labaad iyo xukuumadihii rayidka ahaa ee Somaliland cusub 1991 ilaa hadda 1930yadii. waxa Somaliland oo markaa la odhan jiray British Somaliland Protectorate ka furnaa dhowr iskuul oo Ingiriisku maalgelin jiray. niman macallimiin ah oo wadaado ah ayaa bari jiray ardayda qorista iyo akhriska afka Carabiga iyo xisaabta. waxa isa soo tarayay oo soo kordhayay tirada dugsiyada, waxaana iskuulo cusub laga dhisay magaalooyinka Berbera, Burco iyo Hargeysa. 1937 waxa bilaabatay waxbarashada tooska ah, taas oo uu maamulayay gumaystihii Ingiriisku. dadku arrinta waxay u arkayeen in diinta Kiristaanka waddanka lagu faafinayo, iska caabin xoogan ayaana ka hortimi ololihii waxbarasho ee markaasi socday. 1943 waa xaruntii guud ee Sheekh laga furay iskuulkii ugu horreeyay, halkaas oo lagu bilaabay arday aad u tiro yar. waxa bilaabmay nidaam waxbarasho. xilligaas waxa uu Ingiriisku bilaabay maalgelin cusub oo uu ku sameynayo waxbarashada Somaliland. waxa bilaabmay in fiiga laga qaado ardayda, waxaana xilligaas ka faa'iideystay oo qura dad yar oo u badnaa dadkii u shaqaynayay gumaysiga. dadku waxay la soo qabsanayeen waxbarashada, waxaana jiray iskaashi iyo isgacan qabasho ku aadan dhinaca fiiga iskuulada. 1952 waxa la furay iskuulkii boardingka ahaa ee ugu horreeyay. waxa ka faa'iideystay carruur badan, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. bulshadu mar kale shaki weyn ayay ka muujisay iskuulada boardingka, iyagoo u arkayay hab kale oo carruurtooda lagaga leexinayo diintooda iyo dhaqankooda. isla sanadkaasi waxa la furay iskuulkii ugu horreeyay ee dugsi sare ah, kaasoo ahaa iskuulka Camuud, waxaana waddanka ka dhalatay tacliinta sare. 1956 waxaa Hargeysa loo raray xaruntii guud, waxaana la helay maamul waxbarasho. waxaa la magacaabay agaasimihii ugu horreeyay ee waxbarashada. waxaa Somaliland ka hirgalay manhajkii Suudaan, waxaana waddan ka bilaabmatay waxbarasho habaysan. dadku aad ayay uga heleen, waayo waxa uu ahaa manhaj laga keenay waddan Islaama. waxa la furay dugsigii ugu horreeyay oo hablaha u gaar ah, waxa laga furay magaalada Burco. waxa dalka aad ugu baahday furitaanka dugsiyada hoose dhexe. waxa kor u kacay ka qaybgelistii hablaha ee dhinaca waxbarashada. 1960 oo ahaa sanadkii ugu dambeeyay gumaysiga, waxa sii kordhayay iskuuladii, kuwa boardingka iyo kuwa caadiga ahba. waxa badanayay ardayda ku biirayay iskuulada. markan waa lala soo qabsaday waxbarashadii, gaar ahaan ta hablaha oo bilowgii laga maagay. la soco qaybaha dambe si aad ugu xidhnaato kanaalka. subscribe saar, gambaleelkana furo. haddii aad ka heshay like saar, faalana ka bixi. mahadsanid.